war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiskii shalay magaalada Muqdisho ay ku kala saxiixdeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxda shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Heshiiskaas oo la xiriiray qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa bogaadisay dadaalka aan kala yareen ee ay ku bixinayaan madaxda Soomaalida sidii uu u mir dhali lahaa wadahadallada doorashooyinka Soomaaliya oo madaxda ay ku heshiiyeen in muddo 60 cisho gudahooda lagu qabto doorashooyinka dalka. wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa sidoo kale garab istaag u muujisay mir dhalka heshiiska ay wada saxiixdeen madaxda Soomaalida. dowladda Turkiga ayaa dowladda Soomaaliyeed waxa ay ka taageertaa dhinacyo fara badan oo ay ka mid tahay dhinacyada horumarinta iyo waliba xasilinta dalka, iyadoo dowladda Soomaaliyeed u tababartay dhowr dufacdood oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba kuwa booliska Soomaaliya. Aadan Cali Axmed, VOS TV, magaalada Muqdisho.